munaasabadan ballaaran oo xalay lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahayd taageeridda hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shalay ku guuleystay doorasho loo qabtay kursiga tirsigiisu yahay Hoob 138 ee aqalka golaha shacabka baarlamaanka federaalka. munaasabadan oo lagu qabtay xarunta Shirkole ayay ka wada qayb galeen madax iyo shacab aad u taageersan guusha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aadka loo garan og yahay iminkana ah musharax madaxweyne. waxaan rabaa inaan ku niraahno guulaha midda ugu qaalisan Ilaahay ha ku gaarsiiyo gudoomiyaha xisbiga wadajir Taraxal Diiwaan golaha federaalka haddana ah musharax madaxweyne insha Allah Ilaahay waa kugu guuleynayaa waa jaanis adin badan sugaysay waa jaanis aad u samirtay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo una hambaliyeeyo maxaan ku iraadaayay kuna dhiirigeliyo hamigiisa iyo hiigsigiisa fog Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo runtii ah haliyay dadaal iyo juhdi badan bixinaya atoryaashana Galmudug waa la soo baxna kolay baarlamaanka kuma qasaarayna oo maleynaya gariir badan baa baarlamaanka yeeray gariir badan markii lagu noqdo Soomaaliya baarlamaanka markaan gariir badan baa ka yeeraya madaxweyne waxaan ku leeyahay hambaliyo waa ku faraxsanahay nin waxa tahay akademiga oo maskaxiyan u diyaarsan oo bisilaa tahay. Senator Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ayaa doorashada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sheegay mid wax weyn kaga dhigan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya in aad ka mid noqoto dadka wax ku soo kordhin doona hadii Ilaahay yiraahdo dadka waxtarka u leh mowqifka iyo mabaadi'da iyo aaraada wanaagsan ka soo gudbin doona halkaas dadka wax ka sixi doona wixii ka khaldanaa baarlamaanka inaad kuwa ka mid noqon doontaan insha Allah rajeynayna. waxaan rabaa madaxweyne musharax Cabdiraxmaan waa huba Soomaalina waa hogaami kartaa ana ogtaas ayagana Allah ku duwo inay wax ku dhiibaan hambaliyaan ku leenahay waxaan hubaa runtii maanta waxay ahayd maalin macno u leh ummadda Soomaaliyeed. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne oo ugu dambeyn dadweynaha la hadlay ayaa ka mahad celiyay hambaliyada shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed kaga iimaanaysay tan iyo shalay markii la doortay. aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur in xilli ii doorto ma sugin shantii sano xildhibaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn madaxweyne goboleedna ma ahayn meel masabna kuma magacawnayn anoo intaas ahayn ayaan dadka Soomaaliyeed ugu shaqeynayay mas'uuliyadaas oo ah inaan ka ilaalino dulmiga inaan ka ilaalino in lagu xadgudbo inaan ka ilaalino in kalitalisnimo dalka loo celiyo intaasaan ugu shaqeynaynay maanta hadda reer Galmudug tihiin oo idmateen inaan xilkaas qaadana waan kaga mahad celinayaa sidii si ka mug weyn insha Allah waa ku sii shaqeey doona. Cabdullaahi Warsame Roble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.